Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada shabakada Kobciya Media iyo Al-Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Yuusuf. Waxaynu maanta bilaabaynaa barnaamijka loo yaqaano Microsoft Office Program. Microsoft Office Program ayaynu bilaabaynaa. Aynu si fiican aynu arki doonaa insha Allah. Waxaynu ka bilaabi doonaa Microsoft Office 2007. waa maxay marka hore? Waa package of softwares. Waa software isku guda jira ama waa package. Waxaa laga wadaa waa interrelated and connected software. Software separate na kala ah, kala shaqeyn kala, haddana wada shaqeyn kara. Microsoft Office shirkadda Microsoft ayaa iska leh. Wuxuu ka kooban yahay kow Word oo loogu talagalay text editor inuu noqdo, in qoraalada written document-ga in lagu qoro. Word baa ugu horeeya, waa kan ugu isticmaalka badan, waxaana loogu talagalay in lagu qoro text editor. Ama waa text editor waxaa loogu talagalay in lagu qoro waxa loo yaqaano documentiyada written-ka in lagu diyaariyo. Waxaa kaloo ka mid ah Excel program oo isna ah spreadsheet program. Waa program loogu talagalay numeric data, calculationska, xisaabaadka, database-ka ayaa inta badan simple database-ka ayaa loogu talagalay in lagu qabto. Wixii Word uu qaban waayey ayaa Excel-ku markaa uu qabanaya oo uu ka bilaabayo taybaladii xisaabta looga shaqeyn lahaa ama database-ka ayuu si fiican u qabanaya. Waxaa ka mid ah programka saddexaad uu ka kooban yahay Microsoft Office Program PowerPoint. PowerPoint waa presentation program. Waa program loogu talagalay in wax lagu soo bandhigo, wax lagu xayeysiiyo, ardayda isticmaasha markay wax khudbada jeedinayaan, macallimiinta isticmaala markay wax sharaxayaan. Okay. Waxaa kaloo ka mid ah Outlook. Outlook waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo emailka, khaas ahaan emailka ayaa waxaa loo isticmaalaa mararka aad offline ka tahay ama markaad online ka tahay, labadaba. Waa program email sending and receiving loogu talagalay inuu ka shaqeeyo. Waxaa kaloo ka mid ah Access program. Access program waa database program. Waa program loogu talagalay database-ka, xogta weyn oo ballaaran oo Excel ku qaban kari waaye inay qabato. Sawirada ayaa la geliyaa, xogta, xisaabaadka, database-yada shirkadaha, waxyaalahaas dhan baa isticmaala. Publisher-ka inta badan waxaa loo isticmaalaa waxa loo yaqaano brochure-rada loo isticmaalaa, kalandarada lagu sameeyaa, postcard-ada lagu sameeyaa, kaararka inta badan, shahaadooyinka lagu sameeyaa iyo intaas oo dhan. Sawiradan ayay leeyihiin. Kan waxa loo yaqaanaa masalan kan waa Access, kan waa PowerPoint, Outlook iyo Excel-kii waxa loo yaqaano Outlook baa loo yaqaano calaamadan waa calaamada guud ee Microsoft Office ee shirkaddu u sameysay. Kan waa publisher-kii, kanna waa calaamadii W oo ah Word. Introduction-ka haddaynu intaa kaga baxno, Microsoft Word ayaan ku bilaabaynaa. Calaamadan ayuu Microsoft Word inta badan uu leeyahay. Inta badan calaamadaas ayuu leeyahay. Okay. Waxa markaynu kasoo tagno aynu hore usoo aragnay. Kow waxaan ka bilaabaynaa ama waxaan rabnaa in casharka aynu ku bilowno qaab practical ah. Ma rabno inaan theory ku mashquulno, waxaan rabnaa practical inaan bilowno. Kow waxaan ka bilaabaynaa changing font. Farta documentiga markaad soo kicisid oo aad hoos ka soo kicisid oo aynu si fiican markaa usoo kicino oo casharka koowaad aad ku arkayna soo kicintiisa halkan waana keenaya. Halkan markaa farta aad qoratid waxaad u baahantahay changing inaad wax ka bedeshid format. Okay, hadda far aan qorno waxaan qoraynaa welcome to this lecture. Casharkan kusoo dhawow. Qoraalkaas marka waxaan rabaa inaan changing font farta ka bedelo. Waan soo qaadayaa, highlighting ayaan ku sameynayaa marka hore. Markaan highlight gareeyo kadibna waxaan aadayaa size-ka oo ah ama aan dhehe font type-ka ayaan aadayaa, farta nooceeda oo dhinacaas marka saa ugu dhufto saas igu soo baxaysaa. Waxaan dooranayaa farta aan rabo. Arial baan doortay oo ujeedaa qoraalkii inuu isbedelayo. Roman baan doortay oo ujeedaa qoraalkii inuu isbedelayo. Sidaas ayaa fartu isku bedelaya. Bolding markaan rabo inaan sameeyo iyadana waan xariiqayaa. Bolding waa maxay? Inaan farti burbuur ka dhigo, italic inaan sameeyo, underline inaan hoosta ka xariiqo. Farti markaas u doorto kow waxaan ku bilaabayaa bolding-kii, B-da ayaan tagayaa, kadibna waan gujinayaa. Ujeedaan farqiga u dhexeeya? Waan gujinayaa. Kadibna waxaan rabaa inaan italic sameeyo, chief inaan ka dhigo, then hadhow iyadan ku dhufanaya. Ujeedaa farqiga u dhexeeya? Waa ujeedaa. Okay, marka dibna waxaan rabaa inaan sameeyo wax loo yaqaano underline.
macnaha inaan hoos ka xariiqo then hadhowdii waa ujeedaa farqiga sidaas ayuu noqonayaa. Okay, changing text color. Fartan hadda waa black. Sida loo bedelo ayaanu arkaynaa markaa farta. Waan dooranayaa farta marka hore. Farta markaan highlighting sameeyo then hadhowdii waxaan tagayaa font colorka. Eeda meesha ku qoran tahay waa font colorka. Then hadhowdii colorka ayaan dooranayaa kii aan rabo markaa. Okay, kaasaan doortay. Waa ujeedaa mid kale aan dooranayaa. Waa ujeedaa markaa colorka inuu isbedelay. Okay, changing text size. Waxaan rabaa markaa fartan cabirkeeda inaan wax ka bedelo. Waa highlighting baan ku sameynayaa. Markaan highlighting ku sameeyo then waxaan aadayaa size-kii. Hadda meesha 11 ku qoran tahay waa font size-kii. Then hadhowdii waa gujinayaa uu soo baxayaa size-ka aan rabaan ka dhiganaya. Tusaale ahaan waxaan ka dhigtay okay, intaasaan ka dhigtay. Hadhowdii saasuu marka changing igu bedelmaya. Alignment of text. Qoraalkii aan qortay baan rabaa inaan sinto. Marka kuwaad waa inaan qoraaladii aan highlighting ku wada sameeyaa. Kadib markaan ku wada sameeyo waa inaan tagaa markaa highlighting. Halkaas baan tagi karaa. Waxa weeye inaan halkaa gujiyo hadduu isku dhex yaacsan yahay. Kaa markaan gujiyo waad arkaysaa inuu siman yahay. Okay, saasay noqonaysaa. Alignment text. Okay, page setup. Waxaan rabaa page-ka inaan dhinacyada inaan ka saxo. Warqadda dhinacyadeeda afarteeda koran inaan ka saxo. Then marka hore waxaan tagayaa page layout baan tagayaa. Page-ka meesha wax looga bedelo. Hadhowdii kadib waxaan kasii tagayaa waxa loo yaqaano margin ayaan kasii tagayaa. Margin waa dhinacyada waa afartii gees ee warqadda. Kadib waan furayaa normal iyo narrow waxaasna baa soo baxaya. Hadhowdii waxaan kasii dooranayaa custom. Waa markii aan rabo inaan wax ka bedelo size-ka cabirada korka dhinaca bidixda midigta. Okay, warqadan ay soo baxaysaa page setup. Then hadhowdii waraaqda waxaan sameynayaa cabiradeeda ayaan wax ka saxayaa. Tusaale ahaan leftiga dhinaca bidix ayaan rabaa inaan ka dhigo 4.0 centimeter. Okay, dhinaca right-ka oo midigta iyadana waxaan rabaa 4.1 isleekaysiiyaa. Okay, then hadhowdii okay baan dhahay. Waa ujeedaa inay xoogaa wax isbedeleen. Okay, line spacing baan rabaa. Line spacing waa maxay? Waa da iyo reader intaan wixii u dhaxaynaya marka inaan wax ka saxo. Waxaan tagayaa wax loo yaqaano boos. Halkaasaan tagayaa. Then hadhowdii markaan tago qaybta paragraph-kaan tagayaa. Then hadhowdii waxaan ka dooranayaa inta u dhaxaynaysa 1.0, 1.15, inta aan rabaan ka dhiganaya markaa. Kaan doono waa ujeedaa markaas aan dhow kala fogaado. Marka horena isu dhawaa haddana wuu kala fogaado. Saasaan ma line spacing sameynaya. Word counting waxaa la dhahaa intee eray baa meesha ku jira. Saasaan waa soconaya review baan tagayaa. Then hadhowdii waxaan kasii aadayaa waxa loo yaqaano positionka loo yaqaano word counting ABC 1 2 3. Then waan ku dhufanayaa isaga ii sheegaya inta word oo meesha uu ku yaalo waa ka xogtaas warbixin buu siinayaa. Page-ka koowaad 224 inta character waxaas oo dhan buu kuu sharaxayaa. Okay, then close baan iska dhahayaa. Waxaan ku xijinayaa heading waxa loo yaqaano and table of content. Heading-ka ama table content macnaha inaan qoraalada qayb weynaysiin karo qayb yareyn karo ayaan sameynayaa. Then hadhowdii saa markaa u doorto waxaan tagayaa halkaas oo ah template-ka bahalka ayaa diyaarsan oo ah heading-ka. Waan soo bedelayaa. Then 2 baan imaanayaa. Waxaan tagayaa halkaa. Then hadhowdii 3 baan imaanayaa. Isagana waa bedelayaa. Style-ka aan baan ka bedelayaa. Style-ka baan rabaa inaan ka bedelo. Adigu mar walba ku noqnoqo oo saa u bedel. Oo sidaa u bedel. Okay. Okay, reference baan tagayaa marka dambana. Then hadhowdii waxaan soo gelinayaa table content. Waa kadibna waxaan kasii aadayaa markaan rabo inaad content-gii oo ka koobnaa aan soo geliyo. Then content-gii heading 1 2 3 4 ayaan kasii tagayaa oo sidaas ayaan ku soo gelinayaa. Sidaas ayaan page number-ka ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Page-ka number u yeelo. Then hadhowdii waxaan tagayaa insert. Then hadhowdii page-ka dooranayaa. Markaan doortana waxaan kasii tagayaa button up iyo kaan ka dhigayo. Then hadhowdii dhinaca dhigana waa dooranayaa. Sidaas ayuu markaa waxaa ku dhamaystirmaya wax walba oo ah page-kii ayaa number yeelan. Ujeedaa number baa halkaa ku yeeshay. Insha Allah halkaas ayaan kasii wadi doonaa. La socod wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.